Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan insha Allah kuu soo gudbinayaa walaal dhambaal yar oo ku saabsan sida looga qubaysto janaabada. Waxaa marka ugu horreysa la imaanaysaa niyo khaalis ah. Waxaad kaloo dhaqaysaa labadaada gacmood. Waxaadna nadiifinaysaa labadii makaan ay wasakhdu ku taalay. Kabacdi waxaad wayse qaadanaysaa wayse qaad caadi ah. Waxaad dhaqaysaa madaxaaga oo dhan, biyahaagana waad wada gaadhsiinaysaa. Si fiican ayaad u dhaqaysaa madaxaaga. Kabacdi waxaad dhaqaysaa dhinacaaga midig, dhabarka iyo horba. Si fiican baadna isku gaadhsiinaysay biyahaaga dhammaan jirka qaybtaada midig. Kabacdina waxaad u gudbaysaa inaad dhaqdo qaybtaada bidix, dhabarka iyo horba adigoo wada gaadhsiinaya biyaha dhammaan jidhkoo dhan. Waxaadna gaadhsiinaysaa biyaha dhammaan jidhkoo dhan. Waxaa jiro meelo biyuhu aysan si fiican u gaadhin sida kilkilada, garbaha, indhaha iyo qaybo jirka ka mid ah. Markaad soo dhammaysato qubayskaaga iyo wayse qaadka, waxaad kabacdi bilaabaysaa inaad akhriso adkaarta Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna Muhammadan cabduhu wa rasuluhu. Subhaanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilayk. Allahumma ij'alni min at-tawwaabiin waj'alni min al-mutatahhiriin waj'alni min cibaadika as-saalihiin.